marka ugu horeyso dhow magacaaga saddexan barnaamij garash wadaag ma dhageysataa sidee soo aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Ramadaan Kariim Ilaahay waa mahad iska leh isku keenay maalmihii ugu dambeeyay Ramadaanka magacayga waxa la yiraahdaa Fattaax Abdullaahi Xuseen oo jooga magaalada Gaalkacyo aad iyo aad buraan waa dhageystaa barnaamij garash wanaag waana ku xirana waya barnaamijku ka duwan yahay barnaamijyada kale ee warbaahinta kale ka baxa maxay isleedahay waa uu kaga duwan yahay maxay isleedahay waa uu ku soo jiito dadweynaha ama isleedahay uu mudnaan gaar ku leeyahay marka la eego barnaamijyada kale ee warbaahinta kale ka baxa barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale waa barnaamij wacyigelin bulsho ah waa barnaamij ka hadla nabadeynta xoojinta nabadda waa barnaamij ka hadla bilicda waa barnaamij ka hadla horumarka waa barnaamij ka hadla social integration ka isdhexgalka bulshada waa barnaamij aad iyo aad very interested ah oo aad loo xiiseeyo ani ahaan waxay aad u jeclahay waxa ugu xiisay u gelinaya waxa ahaa dadka sportska iska dhalinyarada sportskuna waa iska nabad marka barnaamijka maadaama uu yahay barnaamij oo nabadeed waa barnaamij isdhexgal waa barnaamij horumarineed saasa xiisay u keenayso inuu ka duwanaado barnaamijyada kaleeto dadkuna ay aad u xiiseeyaan waya Facebook lagala socdaa warbaahinta kala duwan ee Galmudugna waa laga dhageystaa goobaha colaadaha ay ka jiraan meelaha isbeddelka cimilada dhacay roobkii markii deegaanadii khilaafaadkii waa soo batay oo waxa laga yaabaa in deegaanada ay reemiyigu u guuraan meesha kale roobku ka daay taasna ay keentay khilaafaad oo ka dhaca meelaha biidageenka oo kale iyo sidoo kale ceelasha ayaa khilaaf ka dhaca barnaamijkan inta badan miyiga waa laga dhageystaa marka ma isleedahay wuxuu xal dhaba u yahay dadweynihii warbaahinta kala duwan ay ka gaabisay inuu halkooda ku gaaro oo ay dhageystaan isla markaana dadka qobarada arrimahaas ku xeelan in laga wareysto oo ay fariimahooda u gudbiyaan aad iyo aad waxa ka mar hore ahayd inaan sheego waxaan iloobay inuu barnaamijkan oo dadka reemiyiga ah horta ay deegaanadooda ku dhageystaan sidoo kale waxay helaan wacyigelintii oo early warning digniinihii oo isbeddelka cimilada ayagoo meelahooda joogay helaan waxay la socdaan wax kasta oo cimilada isbeddela hadii daaqsinka hadii ahaleed iyo meelaha roobka ka da'een oo khilaafaadka iyo colaaduhu ay ka abuurmi jireen si fiican barnaamijkan wuxuu uga shaqeeyay in wacyigelin lagu sameeyo sidaas daraadeed hadda dadkii awal diriri jiray oo daaqsinka ama biyaha ku diriri jiray ceelasha hadda si wada jiray ceelka wada cabaan si wada jiray wada daaqan hadii xooluhu ay labada gudi u kala gooshaan oo ayaga isku celiyo waxay leeyihiin xataa gudiyo nabadeynta ka shaqeeya waxaas oo dhan waxa sahlay barnaamijkan garash wanaag oo miyiga meeshooda ugu tagay dhinac walba ay tahay Galmudug sidoo kale social media dadka social media isticmaala ayaguna Facebook ay kala socdaan marka anaga dadka waxaan ahay social media Facebook kala socda page-ka survey aan hadda miyiga ku soo sameynayna dadku waxay ka dhageysanayeen idaacadaha raadiyaha marka waa barnaamij saameyntiisa ay muuqato oo strong ah waxyaabo badan dadka ka bedelay hadii ahleed waaqic bulshada hadii ahleed wada noolaanshaha hadii ahleed ehelnimada hadii ahleed isdhexgalka iyo hadii ahleed in wax la isku quuraba waa barnaamij dadkii fikirkoodii iyo dadnimo ahaantooda xataa bedelay marka barnaamijkan waxaan dhihi lahaa aniga in la joogteeyo oo la sii socodsiiyo aad iyo aadna waa very interested barnaamij aniga ahaan shakhsi ahaan aad aan ugu xirana waya ugu dambeyntii Cabditax waxa tahay in arrimaha bulshada ka shaqeeya inta badanna xaaladda deegaanadan ka jirto waaqiciga og wax badan kala socda maxay isleedahay dhibaatooyinka ugu badan ee deegaankan ka jira Galmudug ama adiga sida gaarka ku saameynaya hadii aan lahayd colaadaha abaaraha dambiyada kala duwan ee ka dhaca hadii aan lahayd cimilada isbeddelka cimilada maxay tahay wax sida gaarka deegaanadan uga dhaca ama si gaar adiga ku saameynaya waxay tahay horta waa colaadaha dadka oo colaadihii hadda meelo dhifay ka jiraan oo aana qabiilkii waa colaad waa concern weyn waa deegaankan ka jira waxa sidoo kale ayadana aan indhaha laga qarsan karin xaalufinta deegaanka dadka oo dhuxusha jaraya iyaduna waa dhibaato u baahan in wax laga qabto oo laga hortago si wada jir ah hadii ahleed dhanka dawladda iyo hadii ahleed dadka bulshada waxa sidoo kale la dagaalanka maandooriyaasha kale waxaasoo kale ayaguna waa concerns badan oo meeshan ka jira si kastaba ha ahaatee bulshadu hadda waxa moodaa inay xoogaa soo kabanayso dhanka social inay dhanka la macaamilka bulshada xoogaa inay
soo kabasho inay jirtaa moodaa oo hadda miyigii waa meelo dhidhifa ay ku hartay aanooyinkii qabiilka iyo deegaanooyinkii laakiin magaalada laga dareemayo xasilooni laga dareemayo isdhexgal laga dareemayo in qofka inta uu nool yahay uu macno leeyahay hadduu dhinto uusan waxba tirin marka nolosha qofka bini'aadanka waxay qiimo leedahay marka uu nool yahay qof dhintana hadee asaga dhagaxaas oo kale waxba kuma tiri karo marka qofka walaalkaya u baahan tahay nolosha u baahan tahay marka aan ka macnaha dadku waxay rabaan inay wada noolaadaan saasay qiimo ku leeyihiin marka haddaan u soo laabato barnaamijkan garasho wanaag waxaan qabaa aniga ahaantayda inuu waaqicii bulshada si fiican u bedelay labadan sano oo socdo dadkii ay maxsuul fiican uga soo baxay oo wax fiican natiijo fiican ay ka heleen marka waxaan dhihi lahaa in la sii joogtayo la sii wado dadka ku xiran ahay aniga dadkana xataa waa ku sii xiraa waxaan iraahdaa barnaamijkaas dhageysta oo nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta iyo isbeddelka cimilada ka hadlaya